waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad janaalkeena soo booqanayso waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto haddii aad hore noola joogtana muuqaalkeena noo laag garayso ama laag inoo saarto laagtu waxay naga saacidaysaa in saaxiibo badan inuu gaaro muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheekada jecel ee jilaaga canka ay shaaruqan iyo xaaskiisa gooriqaan ee soo dhawaada saaxiibayaal jilaaga canka ay shaaruqan iyo xaaskiisa gooriqaan ma aha mid lagu soo koobi karo hal maalin oo keliya laakiin waxaan ka eegi doonaa meelaha ugu muhiimsan oo aan isleenahay saaxiibadiina waa ay jeclaan lahayn inay wax badan ka ogaadaan sheekada jecel ee shaaruqan iyo gooriqaan waxay soo bilaabatay sanadii 1984 labadan shakhsi ayaa waxa ay ku kulmeen xaflad mid ka mid ah gabadha lagu magacaabo gooriqaan ama gooriqaan mid wiil ay saaxiibo ahaayeen xafladooda ayay isku arkeen jilaaga shaaruqan iyo gooriqaan intaa wixii ka dambeeyay labadan shakhsi waxay isku qaadeen xiriir jecel aan dhahay saaxiibayaal muddo ay wada socdeen ama muddo badan ay soo wada xiriireen ama hadiyadooyin iyo waxyaabo badan ay isweedaarsadeen aan dhahay saaxiibayaal ugu dambeyn markii dambe labadan shakhsi waxoogaa way yarax kala xanaaqeen maadaama ay aad u da'yaraayeen oo 12 sano jir ay ahaayeen shaaruqan iyo gooriqaan marka la eego markii uu soo bilaabanayay xiriirkooda jecel laakiin muddooyin badan kadib shaaruqan iyo goori ayaa mar kale dib iskugu soo laabtay oo jecelkoodii meeshii ka sii waday ama sii xoojiyey laakiin caqabadu waxay ka taagneed dhanka shaaruqan gabadhan waxa uu qaaday jecel xadaaf ah waxa uu ahaa qof aad u maseer badan markii uu arko goori oo la hadlaysa nin raga shaaruqan durbo uu xanaaqi jiray waxa uu ku amri jiray inaysan la hadlin ragga qaar ama ragga oo dhan inay ka dheeraato oo aysan la hadlin sida darteed goori way u dulqaaday weysay amarka badan ee uu shaaruqan duldhigayo iyadoo markaasi tixgelinaysa jecelkeeda muddooyin badan ayay la socotay ama ay xiriirkooda jecel ay la wada ama xiriirka jecel ay la wada ninka lagu magacaabo shaaruqan laakiin maalmaha ka mid ah markii shaaruqan dhalashadiisa xafladii dhalashada markii ay ku baagneed ama habeenkii ay ku baagneed dhalashadiisa xaflad yar ayay dhigteen kadib goori ayaa iyadoona u sheegin shaaruqan iyo asxaabtiisaba waxay go'aan ku gaartay inay kaga tagto meesha ama ay aado dhanka iyo magaalada Mumbai shaaruqan ayaa markii dambe dareemay ciriiri dhanka baahi ama gabadhan xiriirka jecel oo u qabo maadaama jecelku uu qabo ahaa mid aad u weyn waxa uu la hadlay hooyadii oo xilligan noolad shaaruqan asigoona u sheegay wax walba siday u dhaceen shaaruqan hooyadii ayaa la talisay kuna waanisay inuu doono gabadha aadana Mumbai waxayna siisay sidoo kale lacag yar oo transport ka dhigto iskuna sii celiyo maalmaha uu soo joogi doono magaalada Mumbai shaaruqan iyo asxaabtiisa ayaa soo aaday dhanka magaalada Mumbai iyagoo raadinaya gabadha lagu magacaabo gooriqaan laakiin nasiib wanaag shaaruqan ayaa ku arkay gooriqaan iyadoo joogta xeeb labadoodaba xilliga jecelku uu ka dhaxeeyay ama jecel uu dhex yaalay markii midba midka kale isha uu saaray waa iscelin waayeen waa in isku soo ordeen labadooda iyagoo laabta isgeliyay shaaruqan ayaa intaa wixii ka dambeeyay aan ku gaaray inuusan mar dambe uusan xumay doonin kana dheeraan doonin gabadha lagu magacaabo gooriqaan laakiin nasiib wanaag waa ay soo raaceen oo magaaladii ayay ku soo laabteen laakiin dhibaatadu waxay ka jirta dhanka iyo qoysaska maadaama shaaruqan uu ahaa qof muslim ah halka goori ay ahayd qof hinduusi ama hinduusi oo diinta kale ay haysatay oo dalkaas Hindiya inta ugu badan ay caabudaan laakiin sheekadu waa ay qariyeen ilaa ay markii dambe xitaa heer waxay gaareen in shaaruqan magaca ay ka bedeshay gooriqaan oo magac kale oo hindu ay u bixiso laakiin markii la soo gaaray gabagabada sheekadooda waa iscelin waayeen waxooda ama jecelkooda way cishan waayeen waxayna go'aan ku gaareen inay isguursadaan sanadii 1991 ama 25 Oktoobar sanadii 1991 dhanka labada qoys inkastoo shaaruqan loo diidanaa gabadhu laakiin markii dambe waxay gabadhu ku madax adeegtay inay guursan doonto waana loo ogolaaday markii dambe iyagoo isku guursaday ama shaaruqan guurku wuxuu ahaa laba guur ayaa dhacay guurna wuxuu ahaa dhanka hinduusiga camal si isku guursadaan ayuu u guursaday guur kalena waxa uu ku guursaday qaab islaam ama muslimnimo ayuu ku guursaday ama qaabka sida ay muslimiintu isku guursadaan oo kale ayuu u guursaday hadda labadan shakhsi waxay isku dhaleen laba caruur ah ama aan dhahay laba caruur ay isku dhaleen kuwa lagu kala magacaabo Aryan Khan iyo sidoo kale Suhana Khan waxaana u jooga wiil kale oo Ibrahim Khan lagu magacaabo inkastoo wiilku si bacrimin ahaan shaaruqan loogu dhalay haddana gooriqaan waxay aaminsan tahay inuu yahay wiilkeeda oo waxay u koolisaa sida wiil ay dhashay ama ay u koolkoolisaa aan dhahay wiil ay iyadu dhashay oo kale shaaruqan iyo gooriqaan muddo 30 sano
ay hadda isqabaan waxaa loo maleeyaa in ay yihiin sida dad dhalinyaro jaceylkooda marka laga cabir qaato sida ay isku jecel yihiin saaxiibayaal. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xogtii yareed aan kaga hadlaynay sheekada jaceyl ee Gooriqaan iyo sidoo kale jilaaga canka ee Shaaruqaan. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar, haddii aad janaalka cusub tahana subscribe inoo saar si aad u hesho sheekooyinkan iyo sheekooyinka xiiso badan. waana mahadsantihiin saaxiibayaal.